Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay inay jiraan dad ku fikiraya waxa ay ka heli karaan dhismaha Galmudug, ha yeeshee kuwaasi looga baahan yahay inay ka fikiraan mustaqbalka dadka reer Galmudug. Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dadka ku howlan dhismaha Galmudug sida ay u dhaqmaan inay ku xiran tahay mustaqbalka dadka ay matalayaan, waxaana uu ugu baaqay odayaasha iyo waxgaradka deegaanada Galmudug inay noqdaan kuwo isku dulqaata. Isaga oo hadal ka jeedinaya Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre shirka dib u heshiisiinta Galmudug ayuu sheegay in shirkani uu gobol xaar u noqon doono hay'adihii kala duwanaa uu lahaa maamulka Galmudug lana doonayo in la sii xoojiyo. waa inaan ogaanaa in gogosha la dhigay iyo heshiiska la idinkugu baaqay inay tahay furaha mustaqbalka Galmudug oo ku qotoma nabad, dowladnimo, midnimo, wax wadaag, wada noolaasho iyo iscafis. iscafiskaas isaga ah waxaa shalayto tallaabadii ugu horreysay noo qaaday ilaahay khayr ha siiye reer Xeraale iyo reer Huushe, iyadoo laga walwalsan yahay sidee bay u heshiin doonaan ayay shalayto iskacan qaadeen oo xalayto aan u xafladeynay oo aan ballan qaadnay inaan dhammaystiri doono. rajaday Galmudug leedahay waxaa kaloo markhaati ka ah warmartiyeedkii ka soo baxay shirkii maanta lagu soo xiray Hobyo. waxaa markhaati ka ah in dadkii shirkii soo xiray madaxdii oo dhan ay halkan fadhiyaan si ay qayb uga qaataan furitaanka shirka. waxaa muuqata Galmudug midaysan oo isku imaanaysa. haddaba haddii si dhab ah aan u heshiino, haddii aan nahay reer Galmudug oo ay muhiim tahay, waxaa la hubaa inuu ilaahay noo furaayo albaabadiisa naxariista. waxaa la hubaa haddii aan si daacad ah oo qalbi ah u heshiino sida ay reer Xeraale noo bilaabeen iyo reer Huushe, inay xoolaheenu noo dararayaan, in dhulkeenna sarac fiican nooga soo bixi doono, in roob abaaraha joogtada naga joojiya uu noo di'i doono, in dhaqaalaheennu ay noo barakoobaan, in cilmiga aan barannay ay dadkeenna iyo dalkeenna wax ku tari doono. ma jirto maanta sabab dambe oo aan isku diidno haddii aan nahay dad Soomaaliyeed ama reer Galmudug. ma jirto sabab lagu coloobo, ma jirto sabab lagu kala fogaado, waayo kulligeen waxaan nahay Soomaali, waxaan nahay deris, waxaan nahay walaalo, waxaan nahay qaraabo, waxaan nahay xidid, waxaan nahay ood wadaag. waxaa idinka dhaxeeya wax walba. waxa marka dhexdeena yaalla keliya waxaa lagu tilmaami karaa wixii la dhihi jiray waa subag weel ku daatay, sina uma xumaado. sidaasaa tihiin, meel lama kala aadi karo. odayaashina dhaqanka way noo fadhiyaan. haddaba si aan u heshiino ama aad u heshiisaan, nidaam iyo maamul loo dhan yahay loo sameeyo, waxaa muhiim ah inaan isla garanno inaan danta gaarka ah iyo danta beelnimada meel iska dhigno, oon ka wada shaqeyno danta guud. sababtu waxa ay tahay danta gaarka ahi way keeni weysay qarannimo, beelbeel iyo qoloqolana way keeni weysay qarannimo, qabyaalad iyo musuqmaasuqna way keeni waayeen qarannimo. dowladnimada wax walba ka wanaagsan. dhaqanka Soomaalida marka indhihiisa lagu fiiriyo ayaa waxaa la yiraahdaa marka ay baqali faris ka wanaagsanaato, ama loo ay geel ka fiicnaato, ama saliid ay subag sixina ka fiicnaato, ayaa beel, koox iyo urur ay ka fiicnaan karaan dowladnimada. dhinac walboo laga fiiriyo dhaqankeenna marka lagu qiyaaso, jawaabta noo soo baxaysaa
waxay tahay waxaana deeqi karta dowladnimo keliya. intii aan joogay galmudug degmooyinkooda waxaa ii suurto gashay inaan soo maro meelo badan, jidka aan ku safro, la kulmo dad fara badan, dhalinyaro iyo waayeel. kulligood waxaa ka muuqatay inay diyaar u yihiin dowlad goboleed galmudug ah oo midaysan. kulligood waxaa ka muuqatay inay rabaan nidaam u adeega oo siiya adeegyada ay u baahan yihiin oo aan iyaga ka adeegan. kulligood waxaa ka muuqatay inay daaleen oo ay ka daaleen dhib soo maray. hadalka ra'iisul wasaare Khayre ayaa ku soo aadaya xilli ay jiraan siyaasiyiin fara badan oo doonaya inay ku loolamaan doorashada galmudug, kuwaasi oo haatan bilowday ololahooda musharaxnimo.